raxsan ayuu igu yiri Rihanna ayaa ka heesaysa haddaan sidaada fursad u heli lahaa waxay noqon lahayd taariikh ay ku han weynaadaan qoyskayagu Rihannada uu la dhacsan yahay aniga agtayda qiimo kama lahayn isagase waxay u tahay xidig waayo jasiiradan waa tii ay ku dhalatay intii aanay caanka ka noqon heesaha iyo ciyaaraha qoobka ciyaarka ee caalamka habeennimadii ayaan hoos u soo dhaadhacay hoteelka wuxuu leeyahay xeeli badda saaran oo si qurxoon loo diyaariyay halkaas ayay Rihanna ka heesaysaa waxaan ag fadhiyay Beej oo habeenka ii sheekeynayay Beej ayaa ii sharaxay Rihanna qaadayso oo la yiraahdo Man Down tudiyo kamid ah heesta ayaa uu si kale igu fasiray waxa uu yiri heesaha pop culture-ka intooda badan anaga sameynaa waxaanay gudbiyaan fariimahayaga maalintaas kadib si weyn ayaan heesaha ugu fiirsan jiray Beej waxa uu igu calaacalay in ay ku khasaareen dagaalkii ay islaamka ku qaadeen waxa uu igu yiri anagoo doonayna in aanu sawir xun ka faafino dunida islaamka ayaanu saxaafada kala dagaalanay sidoo kale qarxii September 11keedii waxaanu ku banaysanay in aanu ku weerarno 7 dal oo muslim ah 7 dal ayaanu qorsheynay in la weeraro waa Afghanistan Iraq Libya Yemen Lebanon Sudan Soomaaliya iyo Iran oo ah ta ugu dambaysa ee la weerarayo Iran markuu Beej ka hadlayay wuxuu adeegsaday intan Iran is the last nail on the coffin laakiin isku dayga lagama faa'iidin halkan dadka diinta islaamka qaadanaya ayaa boqol jibaarmay guuldarro ka weyn miyaad garanaysaa wixii dadku ay doonaysay inay ka fogaadaan oo ay u sii dhawaadaan oo ay galaan diinta islaamka xun ma jirto in dadku qaataan manhajka aad kala dagaalamayso waxa uu weydiiyay yaa bixiyay amarka lagu weerarayo 7 dal ee islaamka Beej waxa uu igu yiri waxa sidaana faray Big Brother waa walaalka weyn horay uma fahmin waxa uu uga jeedo walaalka weyn mase uu jeclaysan in aan sii weydiiyo waxaan iska diidayaa inuu iga shakiyo waxaan ku uri sidee idinku suura gashay inaad Soomaaliya weerartaan Beej ayaa ii bilaabay sheekada Soomaaliya waxa uu yiri waxaanu ogeyn in halka ay ka jiraan jihaadiyiin jiifa si aanu u toosino CIA-da ayaa qandaraas 120 milyan oo dollar siisay hogaamiye kooxeedyadii waxaanay ku dhawaaqeen in ay la dirirayaan oo ay Mareykanka u dhiibayaan argagixisada sidaan doonaynay ay isku difaacaan oo u dagaalameen kuwii aanu rabnay inay ka soo baxaan qaar garanaya aragti fog ama yaqaan aragti fog oo ay ku fuliyaan waxay aaminsan yihiin 7 cisho gudahooda ay gacanta ku dhigeen dalkii waxayna ku dhawaaqeen midowga maxaakiimta islaamka markaas ayaanu siinay Ethiopia oo u dagaalameysay danahayaga iyo danahooga sidaas ayuu ku bilowday dagaalkii lagama sagaadhin jooyadooyinkii laga lahaa dunida islaamka guud ahaan waxa kor u kacay iska caabinta lagala horyimid duulaanka galbeedka ku soo qaaday waxa ay muuqatay in aan guul laga gaadhay laakiin ma iyo qof tala laga qaadanayo aniga inta ila aragtida ah lanama dhageysto heestii u dambeysay ee Rihanna qaaday ayaa la raahdaa Fly oo Beej igu yiri dhageyso oo dhuux waan dhageystay waxaas igu adkaatay inaan wada xasuusto suudiyadeedii wuxuu furay khadka telefoonka wuxuuna ku qoray Fly lyrics heestii ayaa soo baxday waa uu dhiibay oo waxa uu igu yiri maxaad ka fahantay waxba ayaan ku yiri wuxuu bilaabay inuu ii sharaxo waxay hees falkinaysaa oo ay muujinaysaa guuldaradii walaalaha oo soo dhawaatay iyo iyadoo ka waramaysa warwarka Big Brother haysta walaalka weyn haysta micnaha waxa dhamaanaya 3 qarni iyo 9 sano oo dheeraad ku ah oo ay hurdeen ehlo xaqi waxa kor u kacaya dhaqdhaqaaqyada iska caabinta walaalaha dunidu markii ugu horeysay muddada 309 sano waxay wajahaysay cabsi ku soo food leh dumitaanka nidaamkii aanu aasaasnay 1717kii heestu taas ay ka hadlaysaa waxay si dadban u sawiraysaa Big Brother oo hadlaya dadka qaar ayaa fahmi karin fariimaha tooska ay gudbinayso jacayl bay kugu sheegayaan jacaylku meesha ka muuqda muxuu yahay ayuu igu yiri Beej ayaa yiri Big Brother waxa uu yimid inuu guuleysto oo uu dagaal ku duuleysto dadka isagoo gumaysiga dheeftiisa maalaya kuna maamulaya dunida marka heestu waxay cadeynaysaa qolada jihaadiyiinta ee qoriga noo soo qaatay ee doonaya in ay soo celiyaan khilaafadii islaamka waa marka uu soo baxayo walaalka weyn ee aanu u sii gogol xaadhayno They start coming and I start rising wuxuu beedkani sheegayaa in soo bixistiisu ay tahay